العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقام كل معلل فإذا به. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. ساكا صباحني 4 taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bisha 2 2021 waafaqsanna 12 Rajab 1442 waxa inoo socday tartankii sanadsiyeedka 2020-2021 saakana waxaa tartamaya labada fasal kala ah fasalka afaraad iyo fasalka diyaarinta ama koorso. insha Allah taala waxa baahi doonaa sheegi doonaa magacyada labada fasal u kala tartamaysa. haddaan ku horeeyo fasalka shanaad waxa u tartamaya Aisho Abduqaadir Maxamed, Aisho Cabdi Cali, Farxaan Maxamed Cabdinuur, Hibo Saciid Maxamed, Najax Jamaal Maxamed, Saacid Xasan Cusmaan, Xamdi Yuusuf Cabdullaahi. fasalka diyaarintan ardayda u kala tartamaysa waxaa ka mid ah Anzal Cali Cusmaan, أسماء عبد القادر محمد، عبد الله محمد محمود، علي عبد الحكيم خضر، فردوس حسن محمد، مائدو آدن حيلة، حاو أحمد يوسف. انت أصنع هايين مقاعدة أرضية فصلات وكلا ترتميسة. هدو لي هذو نحا وجود بدونا نمبرادا كحسن مادوينكا وحنكور مرة فصل كأفراد قلن إي ورقات ديار صدا نمبرنا قرطة إن شاء الله تعالى. عافلا إن دياريين فصل كأفراد تدح بقول كنت إله تدح بقول كنتني سجال تدح بقول لحدني كو تدح بقول لحدني سدح تدح بقول لحدني شن تدح بقول لحدني تضبط تدح بقول لحدني سجال تدح بقول تضواتني كو. نافيلا إن قرتين فصل كديارين أما كورسو أي لمبركة قرط قلني ورقات غات إن شاء الله. تدح بقول تضواتني سدح تدح بقول تضواتني شن تدح بقول تضواتني سجال تدح بقول سديتني كو تدح بقول سديتني سدح تدح بقول سديتني شن تدح بقول سديتي تضبط تدح بقول سجاشن. وحافلا إن قرتين كوبغوتين إن شاء الله. labada fasal laba arday soo kala dirsato si lambarka qoratuurka ugu qabtaan insha Allah. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي. بسم الله lambarkii loo asteeyay qoratuurka waxa qabsaday fasalka afaraad afaraad su'aasha ku bilaabanaysa ujeedaan lambar 4 loo asteeyay إن شاء الله وحافلنا كبوتين فصل كأفراد أرضي صوت درسة لمبر كسوين مقبت إن شاء الله. تدح بقول كنتني ليه. بسم الله فصل كأفراد نمبر كقبسين وحكومسن مادة إنجليش كسؤال وحيود عيسى سيد صوصات. What is a pronoun؟ دي مرة واحدة نقول لي سؤال إنجليشة وحيود عيسى سيد صوصات. What is a pronoun؟ دي مرة saddexaad aan ku celiyo su-aashu waa su-aal Ingiriisha waxayna u dhacaysaa sida tan What is a pronoun? waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad ka warceli doontiin insha Allah. taariikh abwaan hore tirsha waxay tilmaamaysay taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu kali taagan tahay taar ma goyseene. tartanka adduunyada socdeeniniba meel tiigsan tallaabada si aad ula heshaan dunidan tooraysay dadkaygo wixii kala tagiyo toos xundhaalinaya ka toosmaysta oo taxadaro meel iskaga tuura istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada jahligiyo saboolkana tirtira tacabna soo saarta ubadkana tacliintiyo cilmiga toosu wadageeya istabaabushayn iyo midnimo idinka oo taagay
oo wada jirtaam yeelayo tiirka u adkeeyey ku tallama inaad tiigsataan horumar taariikh leh ku tashada inaad tiigsataan horumar taariikh leh Actually, the job that's good. A pronoun is a word that replaces of a noun. fasalka afaraad su-aashii la weydiiyey ahayd su-aal ingiliisha una dhacaysay wadise pronoun haddaba jawaabtii ka bixiyeen waa mid sax ah. fasalka ka horso arday soo dirsaday lambarkan ii qabto 319 bismillaah fasalka koorso lambarkii qabsadeen waxaa ku xusan maadada luqatul carabiya su-aashan waxay u dhacdaa si soo socota maa huwa alfaacilu mar labaad aan ku celiyo maa huwa alfaacilu mar saddexaad aan ku celisho maa huwa alfaacilu waxaan filayaa inaad fahantiin kana falci doontaan insha allah taariikh abwaan hore tirsha waxay tilmaamaysay taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu kali taagan tahay taar ma goyseene tartanka adduunyada socdeen iniba meel tiigsan tallaabada si aad ula heshaan dunidan tooraysay dadkaygo wixii kala tagiyo toos xundhaalinaya ka toosmaysta oo taxadaro meel iskaga tuura istixgeliya oo wada tashada oo tub wada qaada jahligiyo saboolkana tirtira tacabna soo saarta ubadkana tacliintiyo cilmiga toosu wadageeya istabaabushayn iyo midnimo idinka oo taagay oo wada jirtaam yeelayo tiirka u adkeeyey ku tallama inaad tiigsataan horumar taariikh leh ku tashada inaad tiigsataan horumar taariikh leh الفاعل هو اسم مرفوع يأتي بعد الفعل يأتي بعد الفعل الفاعل fasalka koorso su-aashii la weydiiyey ahayd luqatul carabiya jawaabta ka bixiyeen maaha mid dhammaystiran jawaabtoo dhammaystiran waxaa weeyaan alfaacil huwa ism marfuucun ya'tii bacda ficlin mabniyin lilmacluumi شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أمتي بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد saakay tartankii noo bilaawday subaxnimo qaybtii koowaad ayaa noo dhammaaday waxaan sheegi doonaa baahi doonaa dhibcaha labada fasal ay kala keeneen maantana waxaa tartamaya fasalka afaraad iyo fasalka diyaarinta ama koorso fasalka haddaa ku horeeya afaraad 4 su-aal la weydiiyey afartoodii 3 ka miday haleeleen mid ka midna waa qaldeen meeshaasna waxay ku haystaan 6 dhibcood halka dhigooda fasalka koorso ayagana 4 su-aal la weydiiyey 3 ka mid ay saxeen hal ka mid ay qaldeen marka meeshaasna qaybta koowaad tartanka wuxuu ku noqday bareejo qaybaha dambena insha allah waa noo dhiman yahay intaana u gudbin qaybaha dhextaalka waxaan dhegeysan doonaa cododka taageerayaasha fasalada duulaaraado abubakar fadal المعالي مخلصا ترجو من الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوم بيعي سعد حسن عثمان كلاس فصل زعاء فرات أنتو حالك كنت تمام فصل ولا لدين كورس ذاك بدن تو سارمني هدينا بدينا نوفي عند المنهلي يا سالكا بسم الله أنا ومقعي معي دادن حيلو كسو ترتمياش فصل كورس ذاك ماشي عسكولة ترتمنا ولا لينا أفراد دينا قبديان والحمد لله تذاكرنا وسارمني وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه بسم الله أنا ومدعي سامي محمد يوسف waxaa ku socda fasalka labaad waxaa tartamaan afraad iyo koorso waxaa taageersanahay afraad guul wacan شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني بسم الله الرحمن الرحيم أنا بو مقعي عبد اللطيف محمد عثمان oo kasoo fasalka shanaad baad meeshan waxaa ku tartamo walaalihiin fasalka afraad iyo koorso anaga isku duwan codkii maxaa siina fasalka afraad guul wacan
بنورها تشفي من الأسقام كل معلل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد سعيد وفصلك لحاد كسعودة meeshaan waxaa ku tartamooyo fasalka afraad iyo fasalka koorso waxaa taageersanaa fasalka afraad guul wacan. نحو العلا بعزيمة وتفاؤل يا سالكا. بسم الله أنا مقعي حسن عبد الرحمن كان صاحب فصل كتابة حال ترتمية فصل أفراد فصل كورسو وحتى عيسانا فصل أفراد كل واحد. شمر وكن للعلم دوما طالبا. بسم الله أنا مقعي لا وعن فاهم عبد كان صاحب فصل سديدات حماشان ku tartamaya فصل كورسو iyo fasalka saddexaad afraad waxaan codeynayna fasalka saddexaad afraad guul wacan. مخلصا ترجو من الرحمن. بسم الله أنا ومقعي ويا سمسم محمد كان صعت كلاس سجالات meeshaan waxaan ku tartami doonaa afraad iyo kooris waxaan taageersanahay kalaaska afraad saddexaad guul wacan. سنف فيه عذب المنهل. بسم الله أنا ومقعي سعاد اسماء عبدي كان صعت فصلك فونتو حقا waxaan ku tartamay saddexaad iyo afraad iyo koorso waxaan taageeraynaa fasalka koorso guul wacan. بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد بسم الله مقعي ويحيى عادسي كان صعد فصلك فونتري maanta waxaa halkan ku tartami doona fasalka koorso iyo fasalka afraad waxaa codkeena siinay fasalka koorso guul wacan. كل معلل فإذا به للخير. بسم الله مقعي وصابرين محا إبراهيم كسعود فصلك اللبي تبنات waxaa tartami doono fasalka afraad iyo fasalka koorso waxaa taageeraynaa fasalka afraad guul wacan. وتفاؤل يا سالكا سبل المعالي. haddana insha allah waxaan u gudbaynaa qaybihii dambe ee tartanka laakana su-aalaha waxaa lagu bilaabay fasalka afraad haddana ayaga arday soo dirsanayo si lamarka u qabsadaan insha allah arday soo dirsado. لا تيأسن ففيه عذب المنهل. يا سالكا سبل المعالي. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. إن شاء الله تعالى ساكي ترتنكي نو بلاد سوحنمو gabagabadiisii ayaan soo gaarnay waxaan baahi doonaa dhibcaha labada fasal ay kala keeneen saaka tartamaya fasalka afraad fasalka diyaarinta koorso. haddaan ku horeeyo fasalka diyaarinta koorso qaybta hore waxaa la weydiiyey 4 su'aal hal su'aal ka mid ay qaldeen saddexda kalena way saxeen halkaas 6 dhibcood ay ku haystaan. qaybta labaad 3 su'aal la weydiiyey 2 ka mid ay qaldeen hal ka midna waa saxeen meeshaasna waxay ku haystaan 2 darajo 2 dhibcood. haddii la isku daro wadarta guud ee dhibcaha ka dhigan tahay markaa 8 dhibcood fasalka koorso keensadeen saaka. dhigoodana fasalka afraad qaybta hore waxaa la weydiiyey 4 su'aal 6 dhibcood ee meesha ka keensadeen hal su'aal ay meeshaas ka qaldeen. qaybta labaad ee la weydiiyey 3 su'aal dambe sidii la rabay oo sax ay ugu jawaabeen maasha allah. meeshaasna waxay ka keeneen 6 dhibcood 6dii hore iyo 6dan isku dar waa 12 dhibcood ay halkaas wadarta guud ku haystaan. markaas halkan waxay guusha raacday fasalka afraad loo hambalyeena fasalka afraad guul wacan insha allah. intaanan gabagabadii aan mataqaanaan soo xirin tartanka qolada xigta ee tartamaysa iyo qaabka iskugu soo aadayaan iyo qolada tartamaysa insha allah xigta ayaa abubakar nagu baraaruji doonaa ustaad abubakar fadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wareegga labaad waxaa tartamay fasalada kala ah fasalka shanaad iyo fasalka lixaad waxaa soo baxay fasalka shanaad. haddana waxaa tartamay fasalka foomtiri iyo fasalka sagaalaad waxaa soo baxay fasalka foomtiri. saakan waxaa tartamay fasalka koorso iyo afraad waxaa soo baxay fasalka afraad. بعد الامتحان ترتنقل ديعي دون إن شاء الله وحانا لو بلاوة إن شاء الله فصلك أفراد إيو فصلك شنات قوي توانادنا وحوف ريا فينال تو دياري إن شاء الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد ترتكي ساكس وحني من نوب الله
إن شاء الله وهالكاس ينو إجهاي وبالله التوفيق والسلام عليكم. راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤل، نحو العلا بعزيمة وتفاؤل. يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي، شمر وكن للعلم دوما طالبا، لا تيأسن ففيه عذب المنهل.